ku soo dhowaada shabakada caalamiga ah ee Gary Global Network Radio. Waxaan maanta halkan idinku soo gudbinaynaa warkii xamaasadda lahaa ee ka imaanaya deegaanka Daawa ee degmada Hudad ee dawlad deegaanka Soomaalida. Warku waa sida soo socota. Waxa aad u kacsan xiisad u dhaxaysa maamulka degmada Waakile iyo maamulka degmada Hudad. Sida xogta aan ku helayno halkaas dhibka ayaa ka bilowday kadib markii maamulka Waakile iyo Borbor ay ku dhaqaaqeen qorshayaal dhul oo ay u talaabeen gobolka Daawa dhul ay Soomaalidu degto ee degmada Hudad si ay u dejiyaan dad badan oo xoolo dhaqato ah. Haddaba markii riyadaas dhulqabsiga ah ay ka hor yimaadeen dadkii dhulka lahaa ee Soomaalida ahaa, ayaa taliyihii ciidanka federaalka taliye ciidan oo federaalka Itoobiya ah Corneyl Gamu oo fadhiyey degmada Careero ku sugnaa wuxuu ku biiray qoomiyadda Oromada wuxuuna go'aan nabadeed ka dhigay mid aan suuragal ahayn, wuxuuna huriyey xaaladii colaadeed ee markii horeba dagaal ku soo fool lahayd. Juun 8 iyo 2025 waxaa magaalada Waakile ku kulmay madaxda maamulka degmada Hudad iyo Waakile si ay u qaboojiyaan hadaladii durbaanka dagaalka, balse taliyaha ciidamada dawladda federaalka ee Corneyl Gamu ayaa hanjabaad u jeediyey ergadii Soomaaliyeed maamulka degmada Hudad uguna hanjabay inuu dili doono gudoomiyaha xisbiga barwaaqo ee degmada Hudad haddii uu aqbali waayo amarkiisa ama dalabkiisa. Corneyl Gamu ayaa loo diray Areeros in uu la dagaalamo jabhadda xoreynta Oromada, balse wuu ku guuldaraystay in uu ka soo baxo hawshii loo igmaday. Hadda wuxuu isku dayayaa inuu colaad ka dhex huriyo laba beelood oo deris ah, wuxuuna ku hanjabay inuu la dagaalami doono bulshada Soomaaliyeed ee daacadda u ah u heelan taageerayaasha xisbiga barwaaqo, tana ay fajacnagu noqotay. Waxa uu xitaa diiday in saaxiibkiis Malka Guba oo wax badan ka og xaaladda taagan uu u sheego ama uu sheego waxa uu ka og yahay xaaladda labada beelood. Intaasi kadib shirka ayaa lagu kala kacay, waxaana uu hadda ku soo wajahan yahay dagaal sababta oo ah ficilkaas ama dhaqankan xikmad la'aanta ah ee guud ee uu abuuray ee uu ku raadinayo mowqif midaysan oo dhex mara labada beelood. Waxa uu ka abuuray cidhif colaadeed oo ku soo fool leh halkaas isaga oo xaaladii markii horeba xumaatay ka sii daray. Haddaba maamulka degmada Boorana iyo maamulka deegaanka Daawa ayaa u hanqal taagaya in ay kulmaan si ay u baajiyaan ama ay u qaboojiyaan in xaaladdu ay faraha ka baxdo.